mudanayaasha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo maanta oo Sabti ah kalfadhiga lixaad kulankiisa shanaad ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa kooramku wuxuu ku furmay 441 xildhibaan waxaana gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ajendaha maanta ayaa ahaa dhaarinta xildhibaan Maxamed Cabdi Xasan waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale dalka u taala sidoo kale waxa maanta la horkeenay golaha shacabka heshiis u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga oo ay horkeentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda cadaaladda garsoorka iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa mudanayaasha golaha shacabka waxa uu uga warbixiyay heshiiskan dhexmari doona dawladda Soomaaliya iyo dawladda Turkiga isafgarad iskaashi waxa loo yaqaan MOU-ga labo iskaalmaysi sharciyeed oo labada daraf labada wadan u dhaxeeya wareejin shakhsiyaad xukuman oo maxkamad xukuntay afar dhiibid eedaysanayaal ama dambiilayaal afartaas heshiis ayaan maanta idin horkeenay oo dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya iyo wasaaradda cadaaladda Turkiga ay soo kala saxiixdeen mudanayaal marwooyin sababaha keenay heshiisyadan Soomaaliya waxay muddo ka maqnayd fagaarayaasha caalamiga ah sidaas darteed ma jiraan heshiisyo badan oo laba geesood ah ay la leedahay dawladaha kaleeto si ay ugu suurto gasho inay iskaashi garsoor oo caalami ah la samayso dalal badan Soomaaliya waxay dhibana u tahay faldambiyeedyo xuduudaheeda ka gudba kuwaasoo isugu jiray dambiye abaabulan tahriibin iyo ganacsi dad lacag dhaqid iyo maalgelin argagixiso haddaba xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga oo aad u soo hagaagayay una soo xoogaysanay waayadan dambe wuxuu keenayaa in shucuubta labada dal ay isdhexgal sameeyaan waxayna waajibinaysaa in arrintaasi ay la socoto iskaashi garsoor oo xoog leh si loo xalliyo faldambiyeedyada ka dhici kara labada dal mudanayaasha golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay heshiiska maanta la horkeenay ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga dhinaca kale wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa golaha shacabka ayana waxa ay horkeentay hindise sharciyeedka wax ka bedelka koortaga lacagaha la dhaqo iyo maalgelinta argagixisada iyo hindise sharciyeedka canshuuraha dakhliga wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa labadan hindise sharciyeed waxa uu warbixin ka siiyay mudanayaasha golaha shacabka waxaad eegi kartaa qodobka 22aad faqradiisa oo si waafaqsan qodobka 35aad ee dastuurka loo dhigay 48 saacadood kaliya in la xanibi karo wixii laga shakiyo wixii inta ka dambeeyana garsoorka loo gudbin karo hadii lagu qanco shakigaasi inuu yahay mid faldambiyeed ka muuqdo dabadna sida shuruucda dalku qabaan loo maro wixii dunuuba iyo wixii eeda ah ee lagu soo oogayo marka waxa laga duulay oo xoogga la saaray qofka muwaadinka xuquuqdiisa in la ilaaliyo waxa kale oo muhiim ah oo sharciga sababaha loo soo celiyay kamid ah maalintii horena aan halkan aad ugu nuuxnuuxsaday inaynu ku jirno qiimeyn waxa jirta dunidu hay'ad ay u samaysatay dalalku sida ay ugu diyaarsan yihiin la dagaalanka argagixisada iyo lacag dhaqista inay qiimeeyaan oo heer gaarsiiya dalba heer siiya kolba sida uu hanaankooda sharci iyo ka maamulba ugu diyaarsan yahay inuu qabto waxyaalaha loogu talagalay inay argagixisada ay ka faa'iideysato ugu dambeyn labadan hindise sharciyeed ayaa waxa dib loogu celiyay guddiga iyada oo la sheegay in khaladaad ku jira la soo sixi doono
gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo soo xiray kulanka ayaa waxa uu sheegay inuu akhrinta koobaad maray heshiiska u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga oo maanta wasaaradda cadaaladdu ay horkantay golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Amal Qaato warbaahinta qaranka Muqdisho.